mudane Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Janaal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiirka amniga gudaha warkan oo ka soo baxay goordhow xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa isbedel lagu sameeyay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa lagu yiri wareegtada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha kadib markii uu arkay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada dastuurka ku meel gaarka ku jira ee 97 98 iyo qodobka boqolaad kuwaas oo ka hadlaya awoodda iyo waliba in uu xil u magacaabi karo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnihiisa golaha wasiirada waxa uu isbedel ku sameeyay qaar ka mid ah golahiisa wasiirada halka wasiiro cusubna lagu soo daray listiga golaha wasiirada ee kooban ee soo baxay wasiirkii arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi waxa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland waxa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya xubin ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu magacaabay Nasr Bashiir ayaa warbaahinta u akhrisay wareegtada ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu magacaabay xubnaha hoos ku xusan mudane Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Janaal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Bidhaan Warsame wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha mudane Maxamed Aadan Macalin wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mudane Axmed Cumar Maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada magacaabistani waxa ay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wareegtadan waxaa ku saxan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana isbedel kooban lagu sameeyay xubnaha golaha wasiirada sidoo kale waxaa suurtagal ah in jiraan xubno kale oo markaasi ka tirsan golaha wasiirada oo isbedel in lagu sameeyo suurtagal ay tahay ama kuwa cusub in lagu soo kordhiyo listiga golaha wasiirada macmiil waxaad ku soo dhawaataa foorno ubax waxaad ka helaysaa adeegyada kala ah buskudka xalwada rootiga islees qamadi macmacaan toorto iyo sidoo kale macmacaano kala duwan waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarka gaaban 326 waxaa foornada ay ku soo kordhisay adeega delivery-ga adigoo gurigaaga iyo goobtaada ganacsi joogo ayaa lagu keenayaa adeegyada dalbatay xarumaha foornada waxay ku kala yaalaan isgoysyada kala ah Baarwax dabka xamarweyne geed jaceyl miisaanka dhuxusha heelasha biyaha iyo sidoo kale X control bacd fiiro gaar ah iminka waxaa soconaya sameyska iyo sidoo kale dalabka buskudka waxa uu ku eegyahay 25ka bisha barakeysan ee Ramadaan mahadsanid